barqanimadii maanta ayaa marqura waxa albaabada loo laabay dhismaha ganacsiga Yara Towers oo ku yaala bartamaha suuqa xaafadda Islii kadib markii la helay akhbaar sheegaysa in walxa qarxa ay ku jiraan gudaha suuqa waxaa la helay xaanshi ay ku qorneed in qarax uu ku jiro dhismaha sida ayaana waxaa halka ku yimid ciidamada ammaanka oo ugu dambeyntii xaqiijiyay in suuqa aysan ku jirin walxaha qarxa gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee Islii Xaaji Yare ahna milkiilaha dhismaha Yara Towers ee la sheegay in qaraxa la geliyay ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ka waramay waxa ka jira arrinka milkiilahi Yara Towers alxamdulillah qisadii yareed oo maanta dhacday ayaan doonayaa inaan xooga idinka waramo saakay barqadii oo numalaynayaa 4 saac ilaa 5 saac subaxnimo ayaa lagu helay musqul iyo liftiga dhaxdeeda qoraal oo sheegaya in meeshanayto Yara Towers oo bom lagu rakabay oona la doonayo inuu qarxo saacadu markay tahay kowdii ama duhurnimo ama sidii loo aqaano todobadii oo duhurnimo markaasayto ayaan wargelinay laamaha dawladda oo ku shaqo leh security-ga amniga waddanka anti-terror police unit iyo police kaleeto isla markii hooshii bay la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oona lagu ogaado inuu meesha bom ku jiro ama oo ku jirin alxamdulillah shaqadoodina si fiican ay u qabteen waxa mahad ilaahay baa iska leh bomna laguma arkin marka anoo ku hadlaayo afka gudoomiyaha shacabka bulshada Islii waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo amniga dawladda ku shaqo leh waana sugan yahay si aad ayaana haddana kor loo sii qaaday marka bulshada waa nabad qabtaa alxamdulillah yaa la waswaasin ganacsiganna sidii hore ha iska sii socdo xildhibaanka degmada Kaamukunji Yuusuf Xasan Cabdi oo la hadlay dadweynaha ayaa sheegay in wax dhib ah aysan ka jirin suuqa Islii oo la isku halayn karo ammaanka runtii nin waalan ama sadad waalan oo inaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyay oo waraaq meeshan kaga tegay nasiib wanaag laamaha nabadda ee dawladda biliiska si degdeg bay u yimaadeen way baareen 10 dabaq ee daartan quruxda badan dhawaan la furay kumanay arag wax boma wax qarax ama se khatar gelinaya nolosha dadka marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii jidadkana waa la furay wax dhibaato oo ka jirta Islii ma jirto nabadgelya ka jirta argagaxisnimo kama jirto tuuga kama jirto dadka sidoodii caadigay suuqa u socdaan ganacsiga sidaas u socdaa wax dhibaato ah ma jirto wax walwal ama aad ka walbahartaan ayana jirin waad aragtaan in nabadda la sugay waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha marka shicibka waxaan ku leeyahay hawalbaharina nabadgelya jirta suuqa sidiisii buu socdaa ganacsiga dib baa loogu soo noqday jidadkeennu way furan yihiin nabad baan nahay Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi